بسم الله الرحمن الرحيم أمريكا دونالد ترامب oo soo saaray hanjabaad culus oo yaab leh isagoo sheegaya in madax furasho uu qabsan doono wafuudda Iiraan ee ka qayb galaysa wadahadallada ka socda waddanka Switzerland waxaan idin wararkii ugu dambeeyay wadahadalladan iyo Iiraan wafdigeeda oo xitaa diiday inay sawir la galaan wafdiga Mareykanka sidoo kale barnaamijka waxaynu ku eegaynaa وغيران لبا قف ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay Mareyka Gaza duqeyn Israa'iil ay ka geysatay iyadoo dhinaca kalena arintan ay ku soo aadaysaa xilli xabad joojin afka ay ka jirto Mareyka Gaza weerar loo geystay markab ayaa laga soo warinayaa xeebaha badda cas ee waddanka Yemen iyadoo tanina ay ku soo aadayso dhowr jeer oo halkaasi maraakiib waxyeello loo geystay waxa ay soo taraysa warbixinta la xiriirta in maamulka madaxweyne Trump uu doonayo in meesha laga saaro ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyadoo wadahadallada la yeelanayo xogaga mucaaradka ee ka soo horjeeda Netanyahu ku dhawaad 30 qof ayaa dhimasho dhaawac ka soo gaaray duqeymo culus oo Ukraine ay ku qaaday jasiiradda Crimea ee waddanka Ruushka ka qabsaday Ukraine dhamaan wararkan iyo waliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordhay intaynu nahwada ku jirno iyo falaqayntii soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad ula socoto oo hesho wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka nimca cabdikariim timacade oo barnaamijka ila talantalinaysa ayaa inoogu bilaabaysa wararka caalamka kuwada safka hore ku jira nimca mahadsanid mawlid habeen wanaagsan wararka caawa ee ugu waaweyn ayaynu ku bilaabaynaa barnaamijka wararka caawa dagaalka Ruushka iyo Ukraine oo xaalku uu meel qaraar marayo isla markaana uu ka sii darayo ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay halka 28 kalena ay ku dhaawacmeen weerar ay diyaaradaha duuliyaha lahayn ee Ukraine ka fuliyeen jasiiradda Crimea iyo gobolka Krasnodar ee Ruushka sida uu sheegay Sergey Haskinov oo ah gudoomiyaha jasiiradda Crimea oo Ruushka uu ka qabsaday Ukraine sanadkii 2014 weerarka ayaa sababay dab xoogan oo ka gacay xarumaha kaydka shidaalka waxaana jirta cabsi laga qabo shidaal yari inay dhacdo duqeymahan ayaa ku soo aadaya iyadoo Ukraine xalay ilaa saaka duqeymo ballaaran ay ku qaaday gudaha Ruushka waxaana la sheegay in meelaha la beegsaday ay ka mid yihiin xarumo shidaalka lagu sifeeyo oo in ka badan 3,000 oo kiiloomitir dhankeeda wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa sheegtay in ciidankooda difaaca hawada ay soo rideen 239 diyaaradood oo drones ah iyadoo Ukraine ay sii xoojisay weerarada ay ku beegsanayso kaabayaasha tamarta iyo saadka Ruushka maamulka jasiiradda Crimea ayaa joojiyay eebinta shidaalka dadweynaha iyo ganacsiyada iyadoo shidaalka loo qoondeeyay oo kaliya adeegyada muhiimka ah iyo hay'adaha ammaanka sidoo kale waxaa hakad galay isu socodkii doomaha ee marinka Kerch halka buundada isku xirta Crimea iyo Krasnodar la xiray saacado badan madaxweyne Volodymyr Zelensky ayaa xaqiijiyay in weerarada lagu qaaday xarumaha shidaalka isagoo sheegay in tani ay qayb ka tahay istiraatiijiyadda Ukraine ee lagu weeqayo awoodda saadka iyo tamarta ee Ruushka waatahay wararka kale ee caawana waxaa ka mid ah dhanka Gaza ugu yaraan 2 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay tiro kalena waa lagu dhaawacay kadib duqeyn dhanka cirka ah oo Israa'iil ay ku fulisay meel u dhow magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza sida ay sheegeen ilaha adeegyada gurmadka degdega ah ee Gaza sida laga soo xigtay saraakiisha caafimaadka diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa beegsaday goob ay rayidka ku sugnaayeen taasi oo sababtay dhimasho iyo dhaawac ka dhashay weerarkaasi ilaa hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay militariga Israa'iil oo ku saabsan fulinta weerarkaasi weeraradan ayaa qayb ka ah xadgudubyo Israa'iil ay ku hayso waxa loogu yeero xabad joojinta oo lagu dhawaaqay bishii Oktoobar ee sanadkii hore inkastoo ilaa iyo xilligaasi ciidamada Israa'iil ay sii wadeen duqeymaha iyo weerarada kuwaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 1,000 qof oo Falastiiniyiin ah hagaag dhanka badda cas haddii aynu jaleecno hay'adda amniga badaha ee Britain laga leeyahay ee magaceeda loo soo gaabiyo UKMTO
ayaa sheegtay in markab shidaal siday lagu soo weeraray meel qiyaastii 92 kilomitir u jirta magaalada al hishaar ee dalka Yemen. Warbixinta ayaa tilmaamtay in doon yar oo ay saarnaayeen 5 nin oo hubaysan ay isku dayeen inay fuulaan markabka. Shaqaalaha markabka ayaa sameeyay dhaqdhaqaaqyo degdeg ah oo ay ku bedeleen jihadii safarka si ay uga baxsadaan weerarka. Hay'adda UKMTO waxay xaqiijisay in markabka dib u sii watay safarkiisa iyadoo dhammaan shaqaalihii saarnaana ay bad qabaan. Maamulka amniga badaha ayaa bilaabay baaritaan ku saabsan dhacdadan xilli ay sii kordhayaan walaacyada la xiriira amniga maraakiibta maraysa biyaha u dhow waddanka Yemen. haatana haynu wararka la xiriira xiisada Iiraan iyo Mareykanka jaleecno iyadoo inoo soo socdo warka weyn ee la xiriira in Trump uu madax furasho iyo abduub uga hanjabay wafdiga Iiraan ee nabadeed iyadoona warar dheeraad ah ay ka soo baxayaan wadahadaladii maanta u bilowday wafuudda ka kala socota Iiraan iyo Mareykanka. wakaalada wararka ee Faris ee Iiraan laga leeyahay ayaa soo xigatay ilo xogogaal ah oo ka tirsan ergada wadaxaajoodka Iiraan kuwaasi oo sheegay in la soo gabagabeeyay wareegii koobaad ee wadahadalada dhinaca ee ka socda dalka Switzerland. wareegan koobaad ee wadahadalada u dhexeeya Mareykanka iyo Iiraan ayaa lagu qabtay ka qaybgalka labada dhexdhexaadiye ee kala ah Qatar iyo waliba Pakistan. war kale oo la xiriira arrimahani wafdiga wadaxaajoodka Iiraan ayaa la sheegay inay diideen qorshe ahaa inay isgacan qaadaan oo sawir wada jir ah ay galaan labada wafdi gaar ahaan wafdiga Mareykanka oo dalbaday in arrintan la sameeyo ka hor inta aysan wadahadaladu ka bilaaban dalka Switzerland. wakaaladda wararka Tasniim ee Iiraan laga leeyahay ayaa sheegtay in diidmadaasi ay timid iyadoo soo xiganaysa ila ku dhow wafdiga wadaxaajoodka reer Iiraan. mas-uuliyiinta Mareykanka iyo qabanqaabiyaasha kulanka ayaa qorsheeyay in labada dhinac ay isgacan qaadaan isla markaasna sawir wada jir ah lagu galo goobta wadahadalada ay ka socdaan ee magaalada Burgenstock ee dalkaasi Switzerland. warka ayaa intaasi ku daraya in madaxa wafdiga Iiraan uu ka horyimid filinta qorshahaasi kadib markii Iiraan ay diiday baahin toos ah oo telefishinka iyo kulan sawir qaadis ah ay la qabto iyadoo aan ka qayb gelin wafdiga Iiraan. wafdiga Iiraan ayaana goobta soo galay kadib markii ay dhamaatay munaasabadii warbaahinta ee sawirka iyo duubiska iskugu jirtay. warbixintuna waxa ay sidoo kale sheegtay in wafdiga Mareykanku uu codsaday dib u dhac 5 daqiiqo si saxafiyiinta uga baxaan qolka wadaxaajoodka ka hor inta aysan wadahadaladu si toos ah u bilaaban. haddaba iyadoo wadaxaajoodada ay socdaan wadahadalada ay imika leeyihiin labada wafdi ayaa war weyn oo xaaladda uga sadari kara waxa uu ka soo yeeray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo lagu sifeeyay hadalkan uu ku dhawaaqay dabka oo baasiin lagu sii shubayo. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hanjabaad cusub diray isagoo u jeediyay Iiraan waxaanu ku andacooday in Iiraan ay la kulmi doonto cawaaqib aad u daran haddii ay sii wado tillaabooyinka lagu carqaladaynayo si hadalka u dhigay isu socodka maraakiibta ee Mareykanka Hormuz oo ah marin muhiim u ah doofinta shidaalka caalamka. Trump ayaa wareysi uu siiyay telefishinka Fox News ee Mareykanka laga leeyahay waxa uu sheegay in uu la hadlay saraakiil Iiraaniyiin maanta isagoo uga digay inay xiraan Mareykanka Hormuz oo ka mid ah marinada ugu muhiimsan caalamka. madaxweynaha ayaa waxa uu yiri haddii Iiraan ay xirto Mareykanka Hormuz dalkooda waa la burburin doonaa. wuxuu sidoo kale sheegay in wafuudda wadaxaajoodka ka qayb galaysa aysan awoodi doonin in ay dalkooda dib ugu laabtaan inkastoo uusan faahfaahin ka bixin waxa uu la jeeda arrintaasi. xiisadda ayaa sii korortay kadib markii ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan ay ku dhawaaqeen in Mareykanka Hormuz la xiray inkastoo ciidanka Mareykanku ay ku andacoonayaan in maraakiibta ganacsigu ay weli marayaan Mareykaasi isla markaasna ciidamada badda Mareykanku ay ilaalinayaan walow warkaasi aan la xaqiijin karin. dhanka kalena Trump ayaa waxa uu Iiraan ku eedeeyay in ay taageerto kooxo hubeysan oo gobolka ka dagaalama isagoo si gaar ah uga hadlay xaaladda Lubnaan iyo dhaqdhaqaaqyada ururka Hezbollah. waxaana uu sheegay in heshiiska hadda jira uu yahay mid ku meel gaar ah isla markaana guushiisu ay ku xirnaan doonto sida ay Iiraan uga jawaabto dalabaadka Mareykanka.
diblomaasiyiinta iyo falanqeeyaasha ayaa ka digaya fashilka wadahadalada ee Switzerland inay horseedi karaan qalalaasyo cusub oo saameeya amniga gobolka iyo suuqyada tamarta ee guud ahaan caalamka. war kale oo arrimahan la xiriira haddii aynu ku sii socono, wasiirka arrimaha dibadda ee Switzerland Ignacio Cassis ayaa sheegay in dalkiisu uu bixiyay jawi ku habboon wadahadal iyo isfaham oo ka socda hareeraha harada Lusena. Cassis ayaa sheegay in xiriirka kalsoonida ku dhisan ee u dhexeeya Switzerland iyo Iran uu weli u adeegayo diblomaasiyadda iyo ilaalinta nabadda bariga dhexe. dhanka Israa'iil, telefishinka kanaal 12 ee Israa'iil laga leeyahay ayaa sheegay in maamulka Mareykanka xiriir uu la sameynayo mucaaradka Israa'iil iyadoo la qiimeynayo in ay jirto fursad weyn oo lagu bedeli karo xukuumadda uu hogaamiyo Benjamin Netanyahu. warbixintu waxay sheegtay in xiriiradaasi ay ku soo beegmayaan xilli ay jiraan khilaafiyo iyo kalsooni darro u dhaxaysa Washington iyo Tel Aviv. isla arrimahan, saraakiil ka tirsan maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa aaminsan inay jirto suurtagalnimo sare oo dowladda Israa'iil inay isbedesho taasi oo ku dhalisay Washington inay xiriiro aan rasmi ahayn la sameyso ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil Naftali Bennett iyo taliyihii hore ee ciidamada Israa'iil Gadi Eisenkot. maamulka Mareykanka ayaana waxa uu muujiyay walaac ku saabsan siyaasiyiinta mayalka adag ee ku jira xukuumadda uu hogaamiyo Netanyahu, waxaana uu doonayaa inuu dhiso saldhig siyaasadeed oo cusub oo ka hor doorashooyinka soo socda oo hirgala Washington iyo xubnaha ay ka baadigoobayso siyaasadda Israa'iil inay hoggaanka wareegto. waa hagaag daawadayaal, goordhow waxaan u gudbaynaa qaybta falanqaynta ee barnaamijka oon ku lafaguri doono caawa caqabadaha ku geedaaman iyo xaaladaha heshiiska Iran iyo Mareykanka oo warar dheeraada ay ka soo baxayaan. balse marka hore aynu ku hakanno qadar xayeysiin. waxaan u gudbaynaa qaybta labaad ee barnaamijka iyo falanqaynta wararka iyo sidoo kale wixii warar ee degdega ee soo kordha. Mawlid, waxaa muuqata halis weyn oo gebi ahaanba wax ka bedeli karta xaaladda diblomaasiyadeed iyo halka ay marayaan wadaxaajoojyada la doonayo in colaadda bariga dhexe lagu soo dabaalo iyadoo nabad laga gaarayo. hanjabaadaha la xiriira Trump ama hanjabaadaha kasoo yariyay Trump maxay ka macno yihiin in uu hanjabo Trump oo ah madaxweynaha Mareykanka wafdi si nabadeed ay u soo dirsatay Iran? runtii arrintan nimac waxay noqotay arrin la yaab leh. qawaaniinta caalamiga ha noqoto kuwa xeerarka ee la degsado iyo kuwa dadku ay isku maamulaanba, ergooyinka nabadeed waa barnaamijyada oo kale lama hadlo lamana taabto. marka waxay noqotay arrin muujinaysa wax kasta in laga filan karo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump markuu leeyahay ergada Iran lama hubi doonaan laaban doonaan. macnaheedu markaa waxay noqon doontaa madax furasho inuu u qabsado, ma hawada in lagu kharijiyo, mise in la yiraahdo ma bixi kartaan, ma dacwad in lagu soo oogo. ilaa hadda faahfaahin muusan bixin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. waraysigan wuxuu siiyay telefishinka Fox News oo kamid ah warbaahinta garabka midig aad ka ugu dhow madaxweynaha Donald Trump, siyaasadiisana aad u buunbuunaya. Iiraaniyiintu arrintan dabcan waxay u muuqanaysaa inaysan dheg jalaq u siinayn sida hadda muuqata, waayo wadaxaajoodkii gordhowta ayuu soo gabagaboobay. iska dhaaf in ay aqbalaan waxyaalaha Trump iyo Mareykanku ay wataan, xitaa waxay diideen sidaynu sheegayno in sawir ay la galaan wafdiga Mareykanka. dabcan waa la soo fariistay, taariikhda waa markii ugu horeysay kulankan iyo kulankii Pakistan muddo 1979 wixii ka dambeeyay ay hor fariistaan wafud Mareykan iyo Iiraaniyiin, inkastoo labadooda kaliya aysan ahayn. oo sida halkan ka muuqata sawirka waxa la qaaday xitaa waa la diiday. Iiraaniyiintu waxay diideen in si ayada loo fadhiyo sawir la galo. waxay dalbadeen in wax sawir aan laga qaadin goobtan, laakiin sida loo fadhiyo qaybna waxaa fariisanaya Mareykanka gacanta bidix, gacantan midigna Iiraaniyiinta ayaa fariisanaya, dhexdana waxaa fariisanaya dhexdhexaadiyaasha Pakistan iyo Qatar. arrintan xitaa waxaa soo baxay war uu sheegay nin hore uga tirsanaan jiray sirdoonka CIA-da Mareykanka oo la Larry Johnson. wuxuu leeyahay xitaa Israa'iil waxay isku dayday inay qaarijiso wasi hadalka u dhigay, inkastoo ilaa hadda cid madax bannaan oo xaqiijisa warkan uusan jirin. Maxamed Baaqir Qalibaaf oo gudoomiyaha baarlamaanka hogaaminayana wafdiga iyo wasiirka arrimaha dibadda Cabbaas Caraaqji waxaa la yiri waxaa
isla markiiba arrintaasi ka war helay sirdoonka Pakistan iyo Shiinaha. Israel digniin baa la siiyey, waxaa la yiri dadkan waxay ku jiraan wada xaajood farma saari kartaan. Marka waa laga yaabaa in wax ay socdaan oo lagu cabsi gelinayo wafdigan Iiraaniyiinta. Laakiin arrinta la yaab kale waxa weeye oo imaan karta, Iiraaniyiintu waxay dhihi karaan waayahay Maraykanka Hormuus waa furan yahay, wafdigooda markay ku laabtaan Tehran waxay dhihi karaan Maraykanka Hormuusna waa xiran yahay, weligeedna la fariisanayo Donald Trump, sidaasna Maraykanka Hormuus waa ku xirnaan doona. cidda qasaaraha ku qabtana waa madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. waayo waxaa la ogsoon yahay heshiiskan iyo wada xaajoodkan iyo xabad joojintan intuba ma dhaceen haddii Donald Trump gacanta sare uu leeyahay. wuxuu dhihi lahaa Iiraan ha isdhiibto, dhowr jeerna waa yiri dadku waxay iskaga baxeen magaalada Tehran oo caasimadda ah, madaxa gacmaha saareen ciidanku, waxaasi oo idil lagama qorin. haddii marka Maraykanka iyo Israa'iil ay og yihiin guul meel u taal, Iiraan lama xaajoodeen. Iiraan waxaa loola xaajoonaya hadda waxay tahay sida khubarada ay sheegayso in ayadoo ay banaanka iskentay oo ay quwadeedii muujisay. marka haddii wafdigan intay ku laabtaan Tehran ay yiraahdaan la xaajoomayna Maraykanka, weligeena la fariisamayno, waxaan u baahanahay cid damaanad ka qaada madaxweynaha Maraykanka, mana aaminayno. xaq bay u leeyihiin inay yiraahdaan. arrintan waxay gebi ahaan burburin kartaa mustaqbalka wax la yiraahdo diblomaasiyad wada xaajood adduunyada xitaa inay dhex maraan. waxaynu ka warqabnaa madaxweynaha Maraykanka inuu ku caddoomay digiisa Ruushka Alaska, halkaasina uu Putin tagay. macnaha meesha aaminada ay joogto waa garan kartaa diblomaasiyadda, laakiin ergan nabadeed in loo hajubo la yiraahdo waxay suurtagal inaysan ku laaban wadankoodii. arrin waxa weeyaan xitaa diblomaasiyadda wax u dhimaysa. waxaana la tilmaamayaa tan inay qayb ka tahay adduunyadii qawaaniinta iyo shuruucda ku dhaqmi jirtay in hadda laga soo gudbay oo la joogo qawaaniintii kaymaha oo sida xayawaanka u kala xoog badan yahay iyo duurjoogta in la isku durqin doono. waa tahay marka ilaa hadda Mawlid ma jiraan wax war ah oo arrintan hanjabaada Trump ka soo ku aadan oo xagga Iiraan ka yimid ama maxay ka yiraahdeen? Iiraaniyiinta horta waa dad miisaanka aad u yaqaan diblomaasiyadda, kama jawaabin wada xaajoodkooday wataan. waxay ka hadlayaan waxa weeyaan xabad joojinta Lubnaan iyo ciidanka Maraykanka iyo in ciidanka Israa'iil Maraykanka uu ku qasbay inay ka baxaan Lubnaan. wada hadalka markii la iskugu yimid waxaa la arrintan Ukraine ka wada hadlayno, mana ka wada hadlayno Hormuuz, mana ka wada hadlayno xitaa lacagaha naga maqan. horta qodobka koowaad oo 14 qodob aan ku heshiinay hala meel mariyo. Israa'iil ciidankeeda ka saara koonfurta Lubnaan, xabad joojinna si rasmi ugu dhawaaqa. wada hadallada maanta oo dhan qodobkaas ayay joogeen. mar waxaa jirtay saacad iyo 20 daqiiqo lagu kala tagay wada hadalka, kadib la isku soo laabtay, kadibna waxaa la yiri maanta wada hadalka intaas ku egyahay. laga yaabo caawa in isku soo laaban doono, laakiin lama sheegin in lagu kala dareeray. laakiin Iiraaniyiintu waxay dalbanayaan, horta waan heshiinay, heshiis baa saxiixday Donald Trump 14 qodob ka kooban. qodobkii koowaad baa ku xadgudubtay iyadoo aan la gaarin ba 1 iyo 2, iyadoo la gaarin ba 2 iyo 3 iyo 4 iyo 14 iyadoo la gaarin. waa inaad horta hirgelisaa qodobkii koowaad. halkaas ay arrintu taagan tahay. marka kama jawaabin ilaa hadda arrintan kama aysan jawaabin, mana u arkayaan runtii inay ka jawaabayaan. ku socon waa tahay wixii waraa ay ka soo kordha arrimahaasi Mawlid ama wixii iska bedela wada xaajoodada u dhaxeeya labada wafdi ee Iiraan iyo Maraykanka kala hogaaminayaan waxaan ugu soo gudbin doonaa daawadayaasheena barnaamijyadeena xiga insha Allah hadduu ay beedmo. bal markan aynu u talaabno warka kale ee la xiriira in maamulka Trump uu doonayo in gebi ahaanba uu bedelo meesha uu ka saaro Netanyahu iyo taladiisa, isla markaana uu la xiriiray xagga mucaaradka Israa'iil. maxaa laga ogsoon yahay oo dheeraad ah arrimahan mise suurtageli karta arrinta ay Washington karkarinayso? horta Netanyahu waa nin galaangal badan, iska dhaaf gudaha Israa'iil, gudaha Maraykanka ayuu saameyn ku leeyahay. Maraykanka ka soo tag labada aqal ayuu saameyn ku leeyahay. labada aqal ka soo tag maamulka madaxweyne Donald Trump xubnihiisa ayuu saameyn ku leeyahay. ciidanka Maraykanka saameyn bay ku leedahay Israa'iil. arrinta marka waa suurtagal in Trump uu dhibsaday Netanyahu oo leeyahay inta ka badan Turkiga kuma sidii karo. laakiin Trump laftigiisa markaas waxa la sheegayaa inuu ku soconayo xarig shiricsan. macnaheedu maxaa weeyaan inuu u bareerayo isaga laftigiisa qatar inuu wajaho Netanyahu. Netanyahu waa nin siyaasadda goon ku ah, dhowr jeer ku soo laalaabtay
siyaasadda Israa'iil ra'iisul wasaare dhowr jeer soo noqday Mareykanka saaxiibo badan ku leh xubno waxaa jira aad ugu ololeynaya oo Kongareeska Mareykanka ku jira oo leh waxaan u soo galnay Kongareeska Mareykanka danta Israa'iil ereygan waa erey aad cajiib ah waxa ka mid ah Ted Cruz in la yiraahdo oo sanadka Kongareeska ku jira danta Israa'iil baan u soo galay Kongareeska Mareykanka qofka ku leh macnaheedu ma ahan deegaanka uu matalayo inuu danihiisa ka shaqeynayo danaha Israa'iil buu ka shaqeynaya waxa kaloo ka mid ah Lindsey Graham xubnaha madaxweynaha aadka ugu dhow wasiirka gaashaandhigga ama xogayaha gaashaandhigga oo kale Pete Hegseth oo kale waxa la sheegaa inuu yahay nin aad ugu dhow Israa'iil Marco Rubio qudhiisa waxa la sheegaa inuu aad ugu dhow yahay marka arrintan inay dhab tahay ayaa laftigeeda shaki ku jira horta marka ugu horeysaba laakiin dhinac marka laga eego haddaynu u qaadano sida hadda la sheegayo waxba ka suurtageli kara waayo Netanyahu xalay banaabax baa ka dhacay magaalada Tel Aviv heshiiska Iran baa laga soo horjeedaa ra'yi ururin ayaa la sameeyay barnaamijyadeena soo socda ayay ku jirtaa ra'yi ururintaasi waxay sheegaysaa dadka Israa'iiliyiinta kala bar oo bar in ka badan inay aaminsan yihiin Iran inay ku guuleysatay dagaalkii la galay kuna guuleysan doonto dadka Israa'iiliyiinta boqolkiiba 60 waxay qabaan inuusan noqon ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu inta kale soo hartay in asaga taageersan iyo in ka gaabsatay inay ka jawaabto arrintaasi ayay noqon kartaa marka culays uu saaran yahay hogaamiyaal badan oo mucaarada ayaa isku bahaystay culays weyn ayaa saaran dagaalku ku guuleysan lahayd laakiin labadooda haddii ay isku hor yimaadaan oo si toos ah isku baritaaro ama la isku abaaro baritaar waxa ula jeedaa waxay noqonaysaa in istaageeraan laakiin si iska soo horjeeda hadday u kala dhaqaaqaan Trump laftigiisu waxyaalaha ku imaan karta waxyaalada dhanka siyaasadda ay noqon kartaa in faylashii lagu haystay oo kale dib loo soo abaabulo fadeexada kale in lagu soo afuufi karo oo kale in doorashada ay dhici karto in laga guuleysto dimuqraadiga markaasi Netanyahu ka shaqeeyay inay guuleystaan waxaasoo dhan marka laftigeeda u bareeri karaa haddii laakiin Trump ay ka go'an tahay asaga laftigiisa meesha inuu ka saaro Netanyahu juhdi badan way ku qaadan kartaa laakiin way u suurtageli kartaa walow dadka Israa'iiliinta go'aanka iska leeyihiin oo haddii ay xisbiga Likud ka codayaan meesha uu ka bixi karo Netanyahu waayo dadka Israa'iiliinta hadday cod siiyaan xisbiga Likud ee Netanyahu cid bedeli kartaa ma jirto laakiin waxa laga hadlayaa waxay tahay iyadoo dacwadna ay ku furan tahay gudaha Israa'iil oo musuqmaasuq ah oo maalin kasta maxkamad la geeyo inkastoo eedeymahaasi iska fogeynayo maxkamadda dambiyada dagaalka oo doondoonaysa haddii marka Mareykanka isku hor yimaadaan Trump oo shaarka u siibtay inuu difaaco Netanyahu xabadka u garaacay saameyn weyn ayay ku yeelan kartaa marka mucaaradkii xoojin kartaa arrintaasi waxaana markaas imaan karta in meesha laga saaro xukuumaddiisa waana Mareykanka runtii dhib uu ka qabaa aniga ma cidda sidaas leh madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka wuxuu leeyahay anaga kaliya u soo harnay Israa'iil inaan taageerno aaway wadamada kale reer galbeedka aaway wadamadii taageersanaa Israa'iil oo tunka ku sida jiray macnaheedu waxa weeye way dhigeen Mareykanka tunka hadda ku sida isaga laftigiisa inta ka badan ma sii kara ayuu leeyahay maxay ku dambeyn kartaa waqtigii waayaha ayaa sheegi doona laakiin ishayna ku hayn doona labadan arrimood imika taagan Netanyahu hadda waxa soo dhacay war sheegaya inuu leeyahay sinimo uga bixi mayno Lebanon Iranna wuxuu leeyahay waxaan ka hortagi doonaa si kasto aan uga hortagi doono inay samaysato nuclear macnaheedu marka waxa weeye wax walbo Trump wado heshiis oo ka soo horjeeda saasa way u noqonaysaa marka loo dhigo siiqadiisa dhanka fasiraadda diblomaasiyadda waa hagaagad badan mahadsan tahay Mawlid daawadayaashuna waa imaadsan yihiin intaas ayaan ku soo gudbinaynaa barnaamijkii wararka caawa oo si toos ah idinkaga imaanaya studiyaasheena koobaad iyo labaad si aad u heshaan wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ku soo gudbino haddii aad ku cusub tihiin baraheena bulshada ee kala duwan ama aadan hore ugu xidhnaynina nagu soo biira tan inta dib ugu kulmi doono war mid kale nacayna waxaan idin leenahay sidaas iyo amaana Allah